Salaajiqadu waxay ka soo jeedaan qabiil la odhan jiray Kinik, meeshaas oo ka soo hayaantay bariga Aasiya oo ah meesha ay asal ahaan Turkiga ka soo jeedaan. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalkii hore waxaynu kaga soo hadalnay qaabkii ay u aasaasantay dowladdii facaweyneed ee la odhan jiray Saljuuqiyiinta. Arsalan Basaasiri ninkii lagu magacaabi jiray isagu dhalash ahaan wuxuu ka soo jeeday Turki, wuxuuna noqday Shiicada Ismaaciiliyada oo aan qaraamidada wax saas ah ka duwanayn, wuxuuna ahaa taliyaha ugu sarreeya ciidanka, isagana carrada oo dhan iska haystay oo boqorkii Buwayhiinta iyo khaliifadaba la haystayaalba u noqdeen. wuxuuna olole ugu jiray inuu khaliifada Cabbaasiyada talada ka tuuro oo uu baabiyo kuna bedelo khilaafo ay soo dhisaan Shiicadii habowsaneed ee sheeganaysay inay firkii Faadimo bintu Rasuul yihiin, kuwaas oo galbeedka muslimiinta ka talinayay, kuwaasibuna la xidhay oo uu sugayay. markii laga saaray Baghdad ayuu mar kale isa soo abaabulay oo uu gobolka Al-Anbar ciidamo ku urursaday. wuxuu kaloo xidhiidh la yeeshay sargaalkii ciidanka Salaajiqada ugu hooseeyay oo la odhan jiray Ibrahim bin Yanaal. wuxuu ku gubaabiyey inuu ku caasiyoobo Tuqrul Biik. markii uu arkay inuu Ibrahim Yanaal caasiyoobay, Arsalan Basaasirina uu abaabul soo wado, ayuu dib ugu laabtay gobolladii uu ka yimiday oo uu isna ciidan ku soo diyaarsaday si uu kacdoonkaas wax uga qabto. intii uu maqnaa ayuu Arsalan Basaasiri Baghdad ku soo laabtay. khaliifadiina nin madaxdiisa ka mid ahaa oo Carab ahaa ayaa magangeliye siiyey, waxaana khaliifadii la geliyey xabsi guri. waxayna ku khasbeen inuu saxeexo qoraal sheegaya inuuna xaq u lahayn talada muslimiinta iyo khilaafada, iyadoo ay joogaan firkii Faadimo bintu Rasuul sallallahu alayhi wasallam, kuwaasi oo laga wada sheegatadii Faadimiinta. sidaan soo tilmaanay, Arsalan Basaasiri wuxuu ahaa Shiicada Ismaaciiliyada loo yaqaano, wuxuuna doonayay inuu khilaafada u diro boqorkii Faadimiinta si uu talada ugu wareejiyo oo uu dariiqooyin been ah oo Yuhuud iyo Majuusiyiin ay soo sameeyeen ayna rabeen inay muslimiintu ku khasbaan oo hoos keenaan oo sidaas diinta Alle ee toosan ku burburiyaan. laakiin Alle ayaa taas ka diiday oo mar walba oo diinta Islaamka loo yaabo garab iyo gaashaan u soo saara. waxaan odhan karaa Salaajiqadu waxay ka mid ahaayeen gargaarkii Alle u soo saaray muslimiinta goor ay xaaladdu halis ku marayso. Suldaan Tuqrul baana soo laba kacleeyay oo kacdoonkii walaalkii jebiyey, kadibna wuxuu weerar ku qaaday Basaasiri. dagaal khadhaar kadibna ciidankiisi waa la jebiyey, markaasuu faras ku baxsaday. wiilal baana cagta u saaray oo dilay, madaxiisina keenay. halkaasibuna ku dhammaaday shirqoolkii Shiicada Raafidadu ay wateen oo ay ku taageerayeen Shiicadii Faadimiinta oo qaraamidada xidhiidh caqiido lahaa. Salaajiqadii markii ay talada la wareegeen, khaliifadii waa ay soo nooleeyeen oo khaliifadii haybadii iyo jagadiiba wax ka siiyeen oo waa ay ciseeyeen. madhabkii sunnadana waa ay soo celiyeen, Buwayhiintana waa laga raystay. markii uu Tuqrul magaalada Baghdad soo galay, waxaa soo dhoweeyey khaliifkii xilka hayay ee Alqaa'im biamrillah, madaxdii iyo waxgaradkii ummadda, waxaana lagu soo dhoweeyey caleemasaar uu khaliifku u diyaariyey isagoo noqonaya suldaanka dowladda maamulaya. khaliifkuna diinta ummadda iyo dowladda oo dhan buu oday u noqonayaa oo waa la xaq dhowrayaa. kadib khaliifkii ayuu qasrigiisii ugu soo galay oo ku soo dhoweeyey, markaasuu dhulka u haabtay isagoo khaliifka salaamaya. kadibna waxaa lagu soo dhoweeyey sariir khaliifada hortiisa taallay, markaasuu khaliifku la hadlay isaga oo looga turjumayo oo madaxa guurtida ayuu ku yidhi, waxaad u sheegtaa in amiirka mu'miniintu uga mahadnaqayo waxqabadkiisa iyo dadaalkiisa, isla markaana uu ku faraxsan yahay inuu ag joogo oo uu wehel u noqdo. adiga ayuuna dusha kuu saaray xilkii iyo awooddii Alle u dhiibay oo dhan oo maamulka dalweynaha Islaamka ah. markaa Alle weyne uga baq xilka lagu saaray oo ku dadaal sidii aad dalka u hagaajin lahayd oo aad cadaalad ugu dhiqi lahayd, dulmigana loo joojin lahaa. duqii dowladda ayaa u fasiray hadalkaasi, markaasuu kacay oo dhulka u haabtay oo ku yidhi, anigu waxaan ahay adeegaha amiirka mu'miniinta, waxaanan fulinayaa talooyinkiisa iyo awaamiirtiisa. awoodda uu i siiyeyna waan ku shaqaynayaa iyo xilka uu adeegaha iga dhigay. Alle ayaanan garab ka dhiganayaa oo aan solonsiin ka baryayaa. kadib ayuu amray khaliifku in loo soo xidho dharkii salaadiinta oo 7 maro ahaa. markii loo soo celiyey ayuu khaliifkuna wuxuu u xidhay seef ka mid ah darajooyinka madaxda dowladda loo xidho, waxaana loogu yeedhay boqorkii bari iyo galbeed. 3 calanna waa loo keenay, boqorka ayaana guddoonsiiyey calan la yidhaahdo calanka abaalmarinta. waxaa kaloo gacanta loo geliyey axdiga uu ku shaqaynayo oo qoraal ah. khaliifkuna waa uu la dardaarmay oo cabsida Alle ayuu faray. halkii baana hortooda lagu akhriyey axdigii qoraalka ahaa. markaasuu kacay oo khaliifka gacanta ka dhunkaday, dabadeedna wuxuu meesha ka baxay isagoo ilaalo dhinac walba ka socoto oo la weyneeyey. halkaas ay dadka Turkidu markii ugu horeysay xilkii muslimiinta qayb ka mid ah ku qaadeen, iyaga oo yeeshay jagada suldaanka loo yaqaano oo ah awoodda fulinta iska leh. Suldaan Tuqrul markii uu Ciraaq la wareegay wuu iska nastay maadaama uu daalay, wuxuuna guursaday inantii khaliifka. dib dambena duulaan uma gelin, isagoo sidii u nasanaya ayay tii Alle u timid oo uu geeriyooday sanadkii 455 ee hijriyada oo ku beegnaa
1063 magaalada Rayibuna ku dhintay. Ilaahay ha u naxariistee, wax caruur ah ama awlaad ah kamuna tegin. Sidaas daraadeed waxa uu ka dardaarmay in talada uu ka dhaxlo wiil walaalkii dhalay oo la odhan jiray Suleymaan bin Daa'uud. Laakiin waxgaradkii Salaajiqadu waxay door bideen Alab Arsalaan oo hogaamiyahoodii hore u dhalay, wuxuuna wasiir ama kaaliye u magacaabay in la odhan jiray Nidaamul Malik oo taariikhda islaamka raad weyn ku yeeshay. ابن أخي السلطان طغرل وابن القائد السيد جقري حاكم خراسان محمد ألب أرسلان. Alab Arsalaanna wuxuu qaaday duulaamo badan, wuxuuna fidiyay dhulkii ay Salaajiqadu ka talinaysay. Alab Arsalaan markii uu xilka la wareegay sanadkii 455 sanadkii ugu horreeyay wuxuu ku howlanaa inuu soo afjaro fidnooyin gudaha ah. Markii la gaadhay sanadkii 456 ayuu bilaabay inuu sii wado duulaamadii lagu ballaadhin lahaa dowladdiisa oo lagu midayn lahaa dhulalkii muslimiinta ee la kala qaybsaday si midnimadii iyo awoodda muslimiinta loo soo celiyo. Sanadkaasi ayuu ku duulay dhulka Armenia oo Roomaanka la midowday oo halkaasi muslimiinta duulaana laga soo hayay muddo badan. Markii uu Azerbaijan gaadhina wuxuu la kulmay dad is-abaabulay oo gaalada ku jihaadaya, markaas ay ku biireen ciidankiisa oo dal aqoon u noqdeen. Duulaankaasna wuxuu ku galay Georgia iyo Armenia, gobollo badan buuna ka soo qabsaday. Markii uu qayb ka mid ah qabsaday buuna soo laabtay, waxaana duulaankaasi ku wehelinayay wiilkiisii dhaxal sugaha ahaa ee Malik Shaah iyo wasiirkiisii Nidaamud Dawlah. sanadkii 462 wuxuu ku duulay Shaam, saraakiishiisii haysatayna wuxuu ku amray inay hoos tagaan khilaafadii Cabbaasiyiinta iyo dowladda Salaajiqada. qaar baa amar diida sameeyay oo muddo qalcadahooda hoosta ka xidhay, laakiin markii dambe waa ay u soo hoggaansameen. Shaam oo dhanna gacantiisa ayay soo gashay ilaa Lubnaan, Falastiin iyo Qudus, waxayna hoos yimaadeen dowladda dhexe ee Baghdad oo isku ahayd khilaafadii Cabbaasiyada iyo dowladdii Salaajiqada oo gacan yara u ahayd.